nin ayaa waxa uu ahaa nin karmeed wanaagsan waxaanu haystay shirkad ganacsi isaga iyo saaxiibkiiba. Aabbahani waxa uu lahaa gabadh uu ku barbaariyay dhaqanka wanaagsan. Waxa uu kale u haystay wiil ay walaashii dhashay oo hooyadii inta dhimatay isagu uu si fiican u rabeeyay. Mar walbana wiilka uu abtiga u yahay aad iyo aad ayuu ugu barbaarin jiray inuu Alle ka cabsado iyo taqwada Rabbi. Maalintii dambe ayaa wiilkii abtiga loo ahaa ee yaraa ayaa waxa uu shaqo ka helay waddanka dibaddiisa. Markii uu rixlada u diyaar garoobayay ayuu abtigiis u yimid isagoo la dardaarmaya. Waxa uu sheegay inuu Ilaahay ka cabsado meel kasta uu tago, iyo inuusan khiyaanaynin ciddii isaga aaminta, iyo inuu mar walba uusan noqonin qof khaayin ah. Abtigii ayaa maalintii dambe isagoo xanuunsanaya ka soo hargalay shaqadiisii. Markii la weydiiyay xanuunka hayana waxa uu uga warramay in saaxiibkiisii shirkadda la lahaa uu khiyaaneeyay, saxiixiisiina uu ka dhacay, shirkaddiina uu ka helay. Sidaa daraaddeed, khiyaano aawadeed buu wuxuu dareemayaa xanuun aad u badan, hantidiisiina waa uu waayay. Faamligii aad ayay uga murugoodeen arrinta ku dhacday aabbahood. Markii uu dawo qaatay ee ladnaaday, waxa uu ogaaday inaanu ku dhaqaaqaynin kursi mooyaane si kale. Waa fatiig ayuu noqday oo uu fadhiistay. Wiilkii abtiga loo ahaa ayaa warbixinta helay iyo xaaladaha ku dhacay abtigiis. Wiilkii waxa uu gudagalay inuu soo celiyo hantidii abtigiis, wuxuuna keensaday waraaqihiisii si uu uga noqdo maamule shirkaddii abtigii hadda ka hor lahaan jiray. Farsamo yaqaannimadiisa aawadeed iyo cilmiga uu u leeyahay idaarada iyo maamulka ayaa waxay dhaxal siisay in shirkaddii loo dhiibo laguna aamino. Ninkii abtigii khiyaanayna uu ka dhigto wiil uu dhalay oo kale. Ninkani ma uusan dhalin wax carruur ah, laakiin wiilkan ayaa carruur ugu dhowaa. Wuxuu u kaxaysan jiray safarrada dibadda, sidoo kale gurigiisa ayuu u wadan jiray. Ileen wiilku waa wiil fiican oo shaqada yaqaana. Xilligii xajka la gaadhay ayaa ninkii wuxuu damcay inuu xajka aado. Sidaa daraaddeed, wiilkii ayuu wuxuu u sheegay inuu ammaano uga dhigay gurigiisa iyo maktabkiisaba, iyo weliba inuu xaaskiisa quudiyo oo biilkeeda siiyo. Wiilkii oo guriga jooga markii ninkii baxay ayaa waxa uu helay saxiixyo iyo waraaqo ay ku qoran yihiin hantidii hore ee shirkadda. Sawir loogooyinkii iyo saxiixyadii ayuu helay. Markii uu damcay inuu abtigiis u celiyo hantigiisii, ayuu wuxuu xasuustay dardaarankii uu hadda ka hor abtigiis ku dhoofiyay ee ahaa ha khiyaanaynin qofku aaminay, xataa adigu haddaad tahay qof khaayina ama uu qofkaasi ku khiyaanaba. waxaana uu xasuustay xadiiskii Nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa haddii Ilaahay yawmal qiyaamaha soo aruuriyo dadkii hore iyo dadkii dambe, Ilaahay waxa uu dhiibaa qof kastoo khaayina calan. waxaana la yidhaahaa qofkii khaayinka ahaa, calankani waa calankii khaayin hebel iyo khiyaanadiisii heblaayo. Wiilkii waxa uu ku celiyey waraaqihii meeshii ay ku jireen, wuxuuna go'aansaday inuu sugo ninkii shirkadda iska lahaa. Ninkii xajka waxa uu ka soo laabtay isagoo murugaysan. Wiilkiina waxa uu ku yidhi, niyahow muddo dhoweydba waxaan dareemayaa culays xagga qalbiga ah, mana nabad qabo. Dad badan oo aan la tashaday waxay ii sheegeen inaan dunuubteydii ku laabto, Ilaahayna u toobad celiyo. Waan xajiyey, laakiin waxaan dareemayaa buu yidhi weli culayskii, mana garanayo waxaan sameeya hadda. Wiilkii ayaa ugu jawaabay, warniyahow waxaa ka mid ah waxyaabaha toobadda lagu aqbalo inaad xuquuqda dadkii iska lahaa u celisid. Abtigay ayaad khiyaanaysay, hantigiisii ayaad qaadatay, isagana weliba arrintaas aawadeed waxa uu qaaday shalal oo waa uu qalala oo hadda kursiga kama kici karo. Horta isaga ka bilow oo u celi hantigiisa, waxaaba laga yaabaa inuu ku cafiyo oo culays kaa dhacee. Waa uu yaabay ninkii, kamana fakerinba arrinkan iyo xeeladan. Laakiin subaxii markii la gaadhay ayuu ninkii hantigii u wada celiyey. Markaasi uu codsanayo inuu iska cafiyo kana raali noqdo. Ninkii wanaagsanaa wax kale ma samaynin, waa ku cafiyey ayuu hore ka yidhi. intaana waxa uu u raaciyay inuu ugu duceeyo ubad wanaagsan in Ilaahay siiyo. وسارعوا إلى
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.